habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London. qodobada wararka caalamka ugu waaweyn caawana waxay kala yihiin xiisad ayaa laga filayaa shir madaxeedka dalalka G7 ee ka dhacaya dalka Canada iyadoo khilaafyo ay soo baxayaan. madaxweyne Trump ayaa ku baaqay in Ruushka dib loogu ogolaado in kooxda ay ku soo noqdaan. maalmo ka hor kulan madaxeedka la filaya inuu dhex maro Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa diblomaasi sare oo Mareykan waxa uu sheegay in Kim Jong Un uu diyaar u yahay inuu sameeyo tanaasulaad weyn. taleefan qaboojiye ku xiran oo dadka gameka ciyaara wax u taraya iyo warar kale ayaa ku jira tiknoolajiyadda Click ee toddobaadka. hogaamiyaasha dalalka qaniga ee dunida ayaa isugu imanaya shirka dalalka G7. horaantiina waxaa la filayay in shirku noqdo mid ay ku kulmayaan dalal xulafa balse sanadkan waxaa shirka hareeyay khilaaf ganacsi oo qoto dheer. Faransiiska iyo Canada labaduba waxay si adag u dhaleecaynayaan canshuurta cusub ee Mareykanku uu duldhigay ganacsiga biraha. Justin Trudeau ayaa sheegay in dooda Mareykanka ee ah in arrinkani uu la xiriiro sababo amni ay tahay mid lagu qoslo. Donald Trump se boggiisa Twitterka ayuu ku qoray shirkan G7ka waxaan doonaynaa in aan ku hagaajino ganacsiga iyo heshiisyada qalloocan. haddaanay sidaasi dhicin kaba sii wanaagsan ayuu daba dhigay. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale xulafada ugu baaqay in Ruushka oo horey looga reebay shirka G7ka dib loogu soo daro. ruushku waa inuu joogo shirkan. maxay tahay sababta uu ruushku uga maqan yahay shirka? anigu sidaasaan ku talin lahaa, laakiin waa arrin ayaga u taalla. inay joogaanna way ahayd. waa inay qayb ka ahaadaan haddaad jeceshahay iyo haddii aadan jeclayn toonna. waxaa laga yaabaa in hadalka laga cadhoodo, laakiin waa inaynu adduunka maamullaa. laakiin G7 waxay ahaan jirtay G8 intii aan ruushka laga tuurin. waa in dib loo soo celiyaa ruushka, waayo waa inay qayb ka ahaadaan miiska wadahadalka. kaasi waxa uu ahaa Donald Trump. xiisadda ganacsiga ee u dhaxaysa Washington iyo lixda dal ee kale ayaa la filayaa in kulan xilliyeedkan G7ka uu noqdo kan ugu xiisaha badan 40 sano ee ugu dambeeyay. kumanaan dibadbaxayaal ah oo leh ujeeddooyin kala duwan ayaa durubaba buuxiyey dariiqyada magaalada Quebec. ilaa 10 kun oo isugu jira boolis iyo ciidamada amniga ayaa la howlgeliyey si loo ilaaliyo madasha shirka. hoteelkan casriga ee ay ku kulmayaan madaxda ayaa 140 kilomitir waqooyi ka xiga magaalo xeebeedka nasashada ee La Malby. Donald Trump ayaa dhanka xulafadii taariikhiga ahayd ee Mareykanka iyagoo cambaarayay tallaabooyinkii uu ka qaatay ganacsiga dhexdooda ah. waxa uu sheegay in mashruuciisu badbaadinayo shaqooyinka Mareykanka isla markaana ilaalinayo amniga qaranka. iyo aluminiyumta soo saara waxaa soo gaadhay dhib weyn. dagaal weyn ayaana lagu soo qaado xagga baayac mushtarka ah. taasna waxaan u aragnaa weerar lagu soo qaaday dalkayaga. hogaamiyaashan ayaa tegey shirka iyaga oo diidan qorshihiisa. madaxweyne Macron ayaa ku booriyey in la istixgeliyo, balse farta ku goday Trump isagoo sheegay inaanan kursiga lagu waarin. ra'iisul wasaaraha Canada oo isagoo martigelinaya shirka ayaa si cad u tilmaamay in talada Trump tahay mid aanan horey la isula gurfayn. waa wax lagu qoslo in la dhaho Canada iyo France baa matala halista amniga Amerika, iyadoo sida xaqiiqda ah aanu nahay xulafada muddo ee Mareykanka. Canada ayaa dagaalkan ganacsiga ah garab kaga raadinaysa midowga Yurub. ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa iyana sheegtay in go'aanka Mareykanku yahay mid xaq darro ah. ra'iisul wasaaraha Britain ayaa intaa ku dartay in UK sii wadi doonto halganka ganacsiga xorta ah ee adduunka. waxaa iminka loogu diyaar garoobay shirkan si la mid ah kulamadii hore ee dalalka qaniga ah ee G7ka. hogaamiyaasha ayaa dhowaan herdan la geli doona Trump. waxaa kala caddaan doonta cidda khatarta ku ah shaqooyinka iyo kobaca dhaqaalaha Mareykanka. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka helay ballanqaad uu shakhsiyan ugu soo diray Kim Jong Un kaasi oo sheegaya in ay Kuuriyada Waqooyi diyaar u tahay in ay laasho nuclearkeeda iyo in sidoo kale in labada wadan ay ku dhow yihiin heshiis.
mike pompey ayaa u sheegay wariyaasha inuu madaxweyne trump uu ku rajawan yahay uuna ka digtoon yahay islamarkaana shirkaasi uu la galayo kuuriyada waqooyi toddobaadka soo socda uu dhici doono. shirka waxa uu ku dhow yahay inuu qabsoomo balse istaraatiijiyadda labada dal waa ay kala fog yihiin. maraykanka waxa uu doonayaa in waqooyiga kuuriya uu laalo samaynta nukleerkiisa balse ma muuqato wax muujinaya in uu jiro ajandaha baabi'inta nukleerka oo lagala hadlaya Kim Jong Un. tani ayaa noogu dhoweyd in mas-uul sare uu tilmaamo in sidaasi ay dhici karto. wuxuu shakhsiyan ii muujiyey in uu diyaar u yahay joojinta nukleerka. wuu fahamsan yahay in habkan hadda jira uusan shaqaynayn. diyaar ayuu u yahay inuu nukleerka ka haro. wuxuu fahamsan yahay inaan samayn karin sidii markii hore. tani waa inay si weyn u muuqataa. balse maxay ka dhigan tahay dhiiranaanta maraykanka iyo waqooyiga kuuriyana ma ku heshiin karaan qeexidda baabi'inta barnaamijka nukleerka? ma macnayn kartaa taasi wax yar? Pompeo waxa uu leeyahay inay samayn karaan balse markii la weydiiyey haddii uu sharaxi karo jawaabtiisu waa maya. waxay noqonaysaa kulan xiise leh waxaana ila tahay in dad fara badan oo dalkayga ay ogaan doonaan wax aanay hore u ogeyn. kulanka ayaa ahaa mid la isku baranayay halkii uu ka noqon lahaa shir muhiim ah. dabcan waxa suuragal ah inay hoos u dhacdo rajada laga qabay inay si degdeg ah heshiis u gaaraan. Mr. Trump ayaa meesha ka saaray talabixinta ah in uusan diyaar u ahayn wax walba oo ka mid ah qodobada wada hadalladan. ilama aha inaan u baahanahay inaan u diyaargaroobo kulankan waayo wax waliba waxay ku xidhan yihiin sida aad rabto inaad u fuliso ama aad ula dhaqantid. Shinzo Abe ayaa qaba walaac dhab ah oo ah faahfaahinta ku saabsan mustaqbalka waqooyiga Kuuriya. waxa uu doonayaa in uu xaqiijiyo danaha Japan in aan laga tagin ayadoo Maraykanku soo dhaweynayo higsiga Kim ee wadankiisa. Donald Trump ayaa ku rajo weyn hamigiisa isaga oo ka hadlay suuragalnimada ah in Kim Jong Un uu ku casuumo Maraykanka haddii shirka Singapore uu miro dhalo. haddaba halkee ayuu Trump ku martigelin doonaa Kim? laga yaababa inaynu halkan aqalka cad ka bilowno. taasina waxa ay noqon lahayd guul la taaban karo. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee maanta. golaha wasiirada ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland ayaa sheegay inay isku raaceen in haweenku 18 xubnood ku yeeshaan hadda kadib golaha wakiilada iyo in beelaha gabooyaha 3 xubnood ay xisbiyada siyaasaddu siiyaan. baarlamaanka Somaliland ayaa hadda waxa ku jira 1 xubin oo dumar ah. xisbiyada kale weli kama hadlin go'aankan waxaana loo gudbin doonaa baarlamaanka. madaxweynayaasha Shiinaha iyo Ruushka Xi Jinping iyo Vladimir Putin ayaa wada hadal ku yeeshay Beijing xilli labada wadal ay isku wanaagsaneen iyaga iyo Maraykanka xagga dhaqaalaha iyo diblomaasiyadaba. madaxweyne Xi ayaa sheegay in wax walba oo xaaladda caalamiga ay tahay Shiinaha iyo Ruushku ay iska taageeraan danaha muhiimka u ah. Austria ayaa ku dhawaaqday in ay erin doonto ilaa 40 imaam oo kharash ay siiyaan dalal shisheeye isla markaana ay xiri doonaan 7 masaajid iyo dhowr urur diimeed. hogaamiyaha waddankaasi Sebastian Kurz ayaa sheegay in arrintani lagu ugaarsanayo islaamnimada siyaasadaysan oo uu sheegay inaanay meel ku lahayn Austria. afyeen u hadlay madaxweynaha Turkigana waxa uu ku tilmaamay tallaabadaasi islaam nacayb iyo cunsurinimo. badanaa waxay ku xiran yihiin sanduuq yaala Windsor Castle. qaar ka mid ah kaydka qadiimiga ah ee India Royal ayaa dhawaan lagu soo bandhigaya London. waxaa hadiyad loo siiyey amiirkii Wales isagoo safar ku joogay India 1875. waa alaabo dhif ah oo ka tarjumaya 4 qarni oo xiriir oo u dhaxeeya koonfurta Asia iyo boqortooyada Ingiriiska. waxaa warbixinta nooga diyaarisay Aisha Afrah. halkan waa meesha ay inta badan qoraalada iyo albumyada koonfurta Aasiya ee farshaxanka lagu keydiyey. kan waa bilowgii qarnigii 18aad ee albumka Mogul. welina waxa ay leedahay kama bi'in waxyaabaha asalka ah. waxyaabahan taariikhda ah oo lagu xardhay wax la xiriira fanka iyo farshaxanka waa 400 sano jir qiyaastii. haddaad si dhow u eegto dhagaha u xiranna si qurux badan ayaa loo sawiray. waxay muujinayaan xiriirkii boqortooyada Britain iyo koonfurta qaaradda Aasiya. kan waa buug ay ku sawiran tahay boqorad Victoria oo farshaxan ah.
inta badan farshaxanka weli dadweynaha looma soo bandhigin waana farxad in xilliga lagu soo qaadi doono Windsor oo la keeni doono bandhiga London balse marka hore waxaa waxyaabahan taariikhda ah la geynayaa meesha kaydka Windsor macnaha wuxuu yahay saacado si degan looga eego dhaqamada dhexdeena si feejigan loo fiiriyo farshaxanka oo la eego in qayb un ay maqan tahay ama ay baaba'day kadibna waxaan ka hagaajinaa qaybahaasi in shaashad weynayso ah lagu eego waxay muujinaysaa dahabka dhabta ah ee warqadda ku dhex lumay iyo tayada buraashkan waa midka ugu fiican ee maanta la iibsan karo waadna arki kartaa sida uusan ugu wanaagsanayn marka loo eego kuwii ay iyagu adeegsadeen taariikhdan waxaa hadda lagu daray galka sawirada ee boqoradda waa qayb ka mid ah hadiyadihii ay isdhaafsadeen amiirkii Wales xilligii uu booqanayay Hindiya sanadkii 1875 xilligii ay boqoradda ahayd Victoria waxyaabahan la soo bandhigay waxay muujinayaan quruxda farshaxanka kuwa ilaaliyay waxa ay sheegeen in 2.5 milyan oo qof oo Yurub iyo UK ku nool loo bandhigay quruxda hoose ee alaabtanna waxa ku farxi doona dadka loo bandhigayo ilaa bisha October markana wararka ciyaaraha haddaynu eegno dowladda Ghana ayaa sheegtay in ay kala diri doonto xiriirkeeda kubadda cagta ee qaranka kadib markii qaar ka mid a madaxdooda la arkay iyaga oo qaadanaya lacag barnaamij telefishin oo uu sameeyay wariyaha Ghana ee aan la isku raacin ee la yiraahdo Anas Arimiyu Anas wasiirka warfaafinta waddankaasi ayaa sheegay in dowladdu ka jawaabayso fadeexad ballaaran oo taagan oo saameynaysa ciyaaraha saraakiisha waxaa ku jira madaxweynaha xiriirka Ghana Kwesi Nyantakyi weli kama jawaabin codsiyo badan oo ahayd inuu hadlo kooxaha horyaalka Ingiriiska ayaa qaadanaya nasiino xilliga qaboobaha laga bilaabo bisha February sanadka soo socda 2019 sidaas waxaa sheegay xiriirka kubadda cagta nasiinadu waxay noqon doontaa 2 toddobaad iyadoo 5 ciyaarood ay dhacayaan toddobaadka ugu horeeya kan ku xigana 5 kale isbedelkaasina waxa uu ku aadayaa baa la yiri horyaalka Ingiriiska kuwa Jarmalka Faransiiska Talyaaniga iyo Spain bal markana wararka tiknoolajiyadda ee toddobaadkan click iyo Cusmaan Cabdi Xasan bandhiga tiknoolajiyada Taiwan ayay shirkadda Asus kaga dhawaaqday telefoon awood leh oo marwaxad ay ku xiran tahay shaashadiisu waxay awood u leedahay inay libriqsigii ay soo bandhigto 90 sawir oo ka dhigaysa muuqaalada kuwa ka faahfaahsan kuwa moobaylada caadiga si loogu ciyaaro marwaxadda ku xiranna waxay telefoonka ka ilaalinaysaa inuu kululaado shirkadaha Amazon iyo eBay ayaa ka mid ah kuwa doonaya inay kordhiyaan iibinta nooc ka mid ah qalabka carruurta ku cayaaraan oo tiknoolajiyada ku shaqeeya kadib markii ay soo baxeen digniino muujinaya in ay khatar jirto walaaca ayaa soo baxay markii nooc ka mid ah oo la yidhaahdo Cloudbets bishii February 2017 la ogaaday in malaayiin haysta codka ay ku duubeen lagu keediyey internetka iyagoo baylaha ah shiinays ku takhasusay xaqiiqda kombiyuutarada lagu sameeyo ayaa la yimid farsamo fudud oo labada kaamara ee moobaylka shidaysa iyadoo si ballaaran loo arkayo farsamadaasi ayaa labada muuqaal isu geynaysa kana dhigaysa mid guud qiimaheeduna waa $50 ugu dambayntii waxay ahayd toddobaad ay shirkadda diyaaradaha Emirates soo bandhigtay qaybta ganacsiga oo aan daaqada lahayn kaamarooyin awooddoodu ay sarrayso oo bannaanka ku xidhan ayaa muuqaallada siinaya daaqadaha gudaha ugu dambayn shirkaddu waxay doonaysaa in diyaaradaheeda aysan daaqado yeelan si ay joog iyo xawaaro sare ugu duulaan ugu dambayntiina darawallada lagu qabto iyagoo xawli baabuurta ku wada waddanka Thailand ayaan la siinin ganaax oo keliya waxay helaan cananaas niyadda loogu dejinayo saraakiisha booliiska gobolka Rayong ayaa la soo baxay fikradan cusub in ay khudaartaasi bixiyaan oo ay siiyaan darawaliinta waxaana ay sheegeen in shaqadooda ay ka dhigayso mid nabdoon darawaliinta ganaaxa loo jarayna ay ku farxaan marka la siiyo inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale dib u kulmayno habeenka isniinta waxaan leenahay nabadgelyo